168 arday ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Nugaal oo ku taala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. 99 kamid ah ayaa habla ahaa, 48 kamid ah ayaa bartay dhakhtarnimo. Ardaydan ayaa ka hadashay xilliyadii adkaa ay soo mareen intii ay waxbarashada ku guda jireen, waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan in ay dhamaystaan dhakhtarnimada buuxda. xaflad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay isla markaana shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda Nugaal. gudoomiyaha jaamacadda Nugaal Cabdirasaaq Maxamed Aadan Lafoole ayaa ardayda iyo macallimiinta ugu hambalyeeyay xafladaasi isla markaana sheegay in waxbarashadu tahay ta ugu muhiimsan horumarkana lagu gaadho. maanta aynu u fadhino dafcadii quraan dafcadii boqolaan dad baa hadii cimriga Ilaahay uu gaarsiiyo dad baa muxuu ahay xaalad doona insha Allah taala gudoomiyada qof baa macallinka martiha la noqon adiga ale waa hantidaadi waa jaamacadaadi waa deegaankaadi waa gobolkaadi adiga ayaa iskale qofka maanta joogay hadduu ka gaaliyo inta uu gaaliyay adigu ka inaynu maanta ka midnahay jaamacadaha galiga Soomaali haddii la dhaho 10 jaamacadood ee ugu horeeya midnahay dhinacan aynu deganahay ee Somaliland haddii la yiraahdo waxaynu ka midnahay 4 jaamacadood ee ugu horeeya من أرض السودان إلى أرض الصومال. وأشكر جامع نوغال على هذه الاستضافة وأحييكم من المنصة. شعبكم في انتظاركم. لقد تعرضت أمتنا الإسلامية إلى حروب تجهيل وتجويع، وأصبحنا فقراء على أغنى أرض في العالم، وأصبحنا جهلاء ونحن نملك مصادر المعرفة. waxay looga baahan yahay cilmiga aan baranay jaamacadeena ka baranay halkaasi badan iyo hal kaweynu gaadhay inaynu ku noqono kuwii ku anfaca cilmiga ay barteen waddankooda iyo dalkooda iyo dadkooda. aniga iyo maamulkii guddoonku shahada magaceeda aad gudoomiyuhu kor ugu qaaday jaamacadaha Soomaaliyeed ee Soomaaliya la yidhaahdo oo 9 ah. jaamacadu waa ka mid jaamacadaha Soomaalida. marka kale haddana markuu sii balaadho waxaa ku soo biiray jaamacado ku yaala Djibouti iyo Kenya shanaad. kuwaana jaamacadu waa ka mid waa hooyadii jaamacadaha. waxaan ka codsanayaa inuu af-Soomaaligiina soo nooleeyo taariikhdeeda la doon caddeeyada looga dhigo taariikhdii hadalkiisa lagu soo mahadcelinayaa jaamacadda nimanka ka shaqeeya ee tacliinta odayaasha ka ah waxay ku shaqeeyaan hamiyad ay Soomaalinimada muujinaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan hadda sidaa u leeyahay inaan dib u xusuusiyo bini'aadamku sidiisaba isaga hadduu isku qarxo 9 bilood bay ku dhasheen. dadka laga yaabo inay dalkeena ay u xukumaan waxay doonaan ka sameeya. waxaynu u baahannahay dalkeena inaynu aaminsanaano, isku kalsoonaano, amnigeenu sugan karaynaa. dhibaato kastoo maanta ayna haysataynu ka bixi karaa. Goobjoog Laascaanood.